ururka haweenka qaranka naaw ee gobolka Gabiley ayaa maanta dhalinyarada ciyaaraha magaalada Gabiley ugu deeqay qalabka ciyaaraha oo iskugu jiray garamaan iyo kubadda cagta waxaana halkaasi hadallo durxula ka jeedisay gudoomiyaha ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley Haweeye Cabdi Kaayn oo ku nuuxnuuxsatay ahmiyadda ururka qaranka naaw oo siinayo dhiirigelinta dhalinyarada si dhalinta looga baajiyo arqaladaha ragaadiyay gudoomiyaha ayaa sidoo kale tilmaamay inay markasta garab taagan yihiin dhalinyarada gobolka Gabiley ayna la shaqayn doonaan. بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan halkan isugu nimid in aan ku gudoonsino qalab sports ciyaalka ciyaara kubadda cagta oo ka kooban 30 qof ciyaalkaas oo ugu ballan qaadnay maalintii kulmiye xafladiisa aanu qabanaynay oo ay xafladda nagala soo qayb galeen ayaanu anaguna ugu ballan qaadnay inaanu siino markaa dreyskaasi ciyaalkii maanta dhamaantood waanu isugu nimid meesha dreyskiina waanu siinana waxaanu jecelahay wixii dhalinyara aynaanu gacan qabano inaanu markasta hawl galino inaanu garab taagnaano kolba wixii aanu heli karnana inaanu siino ciyaalkan oo aanu maxayde waliba ka rajayn doono in magaca ururkana oo qaranka ku ciyaari doonaan annaguna aanu garab gali doono heeliyahooba aanu siin doono marka hadii Ilaahay yiraahdo maanta wixii ka dambeeya annaga iyo dhalinyartu waan isku xidhanahay horeyna waynu wada shaqeynayno waan isku xidhnayn laakiin maanta si gaar ah ayaynu isugu xidhanay kolba wixii idila soo darsana wixii aanu idin kala qaban karno waan idin kala qabanaynaa markasta oo aanu xaflad qabanayna ama aanu shaqeynayno ama aanu hawl qabanayna idinkuna sida ay si leeg wada garab taagnaanaysiin wax walbana waynu wada qabanaynaa idinkana Ilaahay waxaan idinka rajaynayaa dhalinyar si fiican u soo barbaaraysaa tihiin in Ilaahay idinka dhigo kuwa ummadda anfaca ee waalidkooda anfaca ee diintooda iyo dalkooda anfaca ee qarankooda la shaqeeya marka ciyaalkan waxa weeyaan waxaanu halkan maanta ku gudoonsinay dharkii sportiska iyo kubadii lagu ciyaarayay taasi oo aanu maanta aanu intaas siinay kadibna hadii Ilaahay yiraahdo si aanu annaguna kor u soo qaadno dhalinyarta oo niyadda u dhisno oo garab taagnaano oo iyaguna waayeel noqdaan waayeel si fiican u barbaari weeyaan laakiin annaguna aanu noqono waalid garab taagan ama hooyadii qaranka oo garab taagan had iyo jeer hiiliyahoona la garab taagan annaguna waanu idin mahadnaqaynaa sidaana kuma kala hadhayno waynu wada shaqayn doonaa ururka qarankeena oo wada shaqeeyo marka waxa weeyaan sidaas iyo hadii alla yiraahdo wada shaqayn wanaagsan ayaan idinka rajaynayaa idinkuna waad mahadsantihiin inaguna waynu isku xidhnaanana maanta oo kaliya ma hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale xubno kamida kooxaha la gudoonsiyay qalabkan ciyaaraha ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley iyagoo sheegay in la shaqayn doonaan ururkaasi naaw waxayna si gaar ah ugu mahad celiyeen gudoomiyaha ururka qaranka naaw Haweeye Cabdi Kaayn oo iyadu soo abaabushay hawlahani marka hore waxaan salaamayaa ururka qaranka naaw oo maanta la gudoonsiyay dirisada aadiyadka u tirada badan leh ee halka nooga muuqda waana ururka haweenka waana hooyooyinkeen markasta inay garab taageen inay garab taagaan doonaan insha Allah annaguna waan mahadnaqaynaa hooyooyinkeen waxaana leenahay wanaagsan hooyooyinka qaranka naaw ee ugu horeysa gudoomiyuhu waxaan leeyahay mar walba ururku garab taagnaa doona waxaan aad ugu faraxsanahay anagoo qaraadar sidaan ku ciyaari doono magaca hooyooyinka qaranka naaw أنا في قد كل دولة وريك الصدق قبل كذا وحنا هوينك بوجودنا هنا مر والبا لأن تاعنا هو كلا يسوق كل إنسان إمك سوق لي كرام هذا إن مر والبا قرب تاعنا ذن أنا قرب تاعنا ذن قلب خاص وتس كوايا رجع هو كيوا كان أنا كنت قال ما أنا كم يعني أنا من كامل وقارنه si kastaba aatee gudoomiyaha ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley Haweeye Cabdi Kaayn ayaa kamida shakhsiyaadka sida weyn ula shaqeeya dhiirigelinta dhalinta iyadoo muddadii ay qabsatay xilka gudoomiyenimo ee ururka qaranka naaw ee gobolka Gabiley la soo gashay dardar shaqo oo laga dareemay gobolka Gabiley iyo dalka intiisa kale waa Jaafar Awil Herari shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley.